haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo soo diyaariyey ee ku soo dhowaada waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb tobnaad oo ka mid ah waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen uu halgankii lahaanshaha ceelka jigjiga wuxuu bilowday biyo qaybsigiisa markay isku afdhaafeen soomaalidii uu wiilwaal hormuudka u ahaa iyo gaalaha oo iyagana gaalguray uu hogaaminayey garaad wiilwaal oo aqoonsanaa in tiro iyo hubba laga badan yahay waatuu dabadeed u qayla dhaansaday soomaalidii xilligaa ugu ooda dhoweyd ee xagga bariga ka xigtay waatuu u diray erge ka kooban odayo magac lahaa oo isagu uu soocay aadna uu ugu kalsoonaa oo waa dhaqankii hore ee soomaalidu tabtuu ahaaye si gobeed baa ergadaa loo martigeliyey toddobaad markii ay reeraha dhex joogeenna waxaa loo sheegay war ay aad u jeclaysteen waxaa loogu bishaareeyey farriintii garaadka in la yeelay codashadiisiina laga oggolaaday si aan leexleexad lahayn baa loogu ballan qaaday in loo soo gurman doono oo rag farda iyo qarab dagaalba loo soo diri doono si ay iyagu ceelka ugu adkaadaan ergadii oo sidaa u guulaysan ayaa u darbatay sodcaalkii ay ugu noqon lahaayeen galbeed iyo dhulkoodii ha yeeshee intii aanay anbabixin ayaa oday ku jiray cidihii ay martida u ahaayeen waxa uu weydiiyey su'aal ay ka garaabeen jawaab wacanna ay ka bixiyeen wuxuu ku yidhi ragow degmadayada iyo tiinu waa kala durugsan yihiin ninka labalugoodka ahi toddobaad ka badan malaha waa isaga socdaa marka waxaan garan la'ahay sida annagu aan ku ogaanayno in ciidankiinnu uu noo soo dhow yahay iyo kolba inta uu noo soo jiro waa gartii su-aashuyo dhulku waa kala fog yahay waagaasna lama aqoon qalabka uu aadanuhu gadaalkii bartay ee aannu maanta haysanno qalabka iyada oo kumayaal mayl la isu jiro la iska maqlo fariimahana la isugu tabiyo odayadii ay su-aashu ku socotay ee martida loo ahaa ayaa isku noqday cabbaar kadibna ergadii ayay u yimaadeen iyaga oo jawaab u wada waxay ku yidhaahdeen hadda iska ambabaxa reerihiinna markaad gaadhaan warmihiinna xayr ama subag mariya dabadeedna dul saara xero walba bawdkeeda marka aad ku aragtaan habaas yar oo fuulay waxaad ogaataan 2 maalin socod in ciidanka iyagu uu idiin soo jiro mugga xigana haddii aad aragtaan habaaskii oo warmaha wada qariyey waxaad ogaataan in 1 maalin socod uu ciidanka iyagu idiin soo jiro waxay baaq ka dhigteen siigada ka dhalan doonta qoobabka fardahooda iyo dhulka ay gaari karayso ee ay masaafadana uga qiyaas qaadan jireen sidaas baa maalinta ah lagu kala tegi dhinaca kale intii ay ergadu bari ku maqnayd wiilwaalna wuxuu ku howlanaa siduu dadkiisa ugu darbi lahaa dagaalka soo aadan ee lama huraanka noqday wuxuu bilaabay ragga xoog gale oo idil inuu gaar u sooco oo cidaha dhexdooda ka saaro si ay ugu tababartaan halganka ay gaalaha la geli doonaan ee isha baalkeeda u soo jirsaday ciidankii ayuu si fiican ugu habeeyey goobta ba'an ee soo dhowaatay wuxuu u qaybiyey 5 qaybood mid walbana wuxuu u qayday dhinaca ay dirirta ka geli doonto midigta bidixda bartamaha hore iyo gadaal dagaalyahan walba wuxuu u sheegay qaybta uu ka tirsan yahay qayb walbana wuxuu u qeexay goorta ay dagaalka geli doonto iyo ragga ay ku geli doonto tiradooda waa habkii waayadii hore marka la duulinayo ciidamada loo qaybin jiray ciidanka sidaa loo habeeyo waxay carabtu ku magacaabi jirtay khamiis sidaad ku arki karaysid meeris ku jira gabaygii nebi ammaanka ahaa ee uu tirin jiray allaha u naxariistee imaam maxamed bin saciid albuusiiri waa gabayga burdaha loo yaqaan ee nabadgelyo ee naxariista korkiisa ha ahaatee rasuulka ciidamadiisa kolkuu tilmaamayay uu ku lahaa yajuru baxra khamiisin fawqa saabixatin yarmi bimawjin
min alabtaali multatimi. garaad wiilwaal waxaa ka go'nayd dirirta soo aadan inuu isagu ku guulaysto. sidaa darteed wuxuu ku kacay tallaabo aan looga horraynin oo ninkii fulayoobi lahaa oo idil uu ku quusiyey. colka meel ka gadaalaysa geed ku yaal ayuu labadiblo wuxuu ugu xiray axmed wiilwaal oo ahaa curadkiisii oo carruurtiisa oo dhan ugu jeclaa. markaas buu dagaalyahanadii qaybaha ciidankiisa inta kulmiyey waxa uu ku yidhi, nin walbow ogow, gacantayda midig ayaan ku gowrici doonaa ninkii dib u jeesta oo goobta ka carar inta is yidhaahda geedka axmed ku xiran yahay gadaalka mara. waxay ahayd digniin kulul, dhaar culusna uu ku adkeeyey. gaalguray qudhiisu ma fadhiyin, ismana dhigan. weligiiba wuxuu ahaa nin aad u dhiifoon. wuxuu og yahay abaabulka dagaalka ee dhinaca soomaalida ka oogan. bartamaha banka jigjiga ayuu ka dhigtay saldhig iyo goob uu ku ciidan urursado. dhowr cisho gudahoodna wuxuu soo dhoobay guutooyin ku hubaysan dhammaan wixii qarab dagaal ahaa ee degaanka geeska afrika xilliyadaa laga yiqiin. maalin walba dhanka uu bartiruhu joogo ayuu ciidamadiisa u soo durkiyaa ilaa ay isu soo jirsadeen meel ay iska arki karaan. waxay ka ahayd daandaansi, waase lagu gartay. wiilwaal oo ahaa nin looga haray ammaanduulka iyo maamulka dagaaladu ma degdegsana. ma uu rabo in lagu hambooriyo dagaal aanu hubin inuu ku guulaysan doono. weli ciidankii uu bariga ka sugaayey ma soo gaarin. ha yeeshee wuu soo dhow yahayoo siigadii fardahooda ayaa warmihii wada qarisay. siduu baaqu ahaa hal maalin socod oo keliya ayuu u soo jiraa. maalintii dambe ayaa waxaa la soo gaaray gaasaskii reer bariga subaxdii uu galabteeda filaayey. barqa dheer markay noqotay ayuu midhacsaday gaalguray iyo raggii uu goobta soo dhoobay oo ka muuqda meel uu si wacan uga arki karo. isaga oo faraskiisii ku jooga ayuu hor taagan yahay ciidankiisii oo ay suuragal tahay inuu mar walba soo duuliyo. garaadkuna wuxuu rabaa inuu ku baajiyo haddiiba tashi caynkaasi uu ku jiro. dabadeedna isaga oo keligiisa ayuu u xawaariyey boqorka gaaluhu kobtii uu colkiisa ku hortaagnaa. wuxuu ku joogaa weyrax oo ahaa baxdowgii lagu yiqiin ee fardihii xilligaa la haystay ugu orodka dheeraa. tashiga uu ku socdaana wuxuu yahay si uu yeelaba inuu dib u dhigo dagaalka kafoolka ah ee labada ciidan ay fooda isku dari doonaan. wuxuu diidayaa iska hor imaadka weyni inuu dhaco iyada oo aan weli la gaarin dharaarta gelinkeeda dambe oo ah marka uu filaayo in gurmadka bari uu soo gaari doono. muxuu kolka yeelay? sow gaalguray inuu sii maaweeliye ma aha. muxuuse ku maaweeliyey? sidee buu u asadihiyey? goobtii muddada dheer la isu diyaarinayeyse sidee buu ugu adkaaday? sidee bay jigjigi ugu gacan gashay? maxayse ahayd tixdii gabay ee garaadku uu taariikhda goobtaa ku waariyey? barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu dhegaystayaal maanta halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo mid kale oo jawaabaha su'aalahaas idiin sida hadduu eebba idmo. axmed faarax cali idaaja ayaa dhegeysanayseen oo ula soo jeedinaya barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan magaalada washington.